intaani maan ka hor Soomaali Suudaanis nin walba ku furnaa dibad inuu aado laakiin waxaas oo dhan waxaan naga xaqabtiray isbitaalka Soomaali Suudaanis insha Allah waxaan rajeynayaa nin walba meesha ka yimaado kubada ciyaari jiray haddana inuu kubadiisa ku laabto waxaan leeyahay thank you Dr. Khalid thank you Soomaali Suudaanis ani hadda waxaan qalanahay 2 months and half mana rabin entertainment iyo aan sameeyo laakiin as I feel waa fiican aan okay Soomaali Suudaanis oo mahad celina thanks oo in badan xanuun aan dhibtoonay marar badan aan la dhacay oo la xanuunsanay iyo badbaadiyeen marar qaar waxa arkay anigoo like anoo dooyin maraayo ka cabsanay in lugta ay wali qiidhaado waxyaabahaas oo kale so Dr. Khalid thank you muddo 10 sano ka badan aniga ku socday ACL laan oo heer waxa uu gaaray miniskalka ee oo repairing gali waayo oo dadka Soomaalida dhaqan ah iska leedahay hadii qaliin ay galaan ACL ay maqlaan in oo xoogaa ay baqayaan jilib hadii la qalo wareer waayo jilib ma Soomaali lagu qalaaliin marka isbitaalka Soomaali Suudaanis kunin ku jiraad u maasiin Dr. Khalid asagana aad u mahadsan yahay Soomaali Suudaanis oo noo keentay dhakhtar ku haboon dhaawacyada soo gaaray ACL-ka aniga 5 sano dhaawac la ahaa waxaan qalanahay 3 bilood maalmo yar ay weheliya rag badan oo qalliimada iiga horeeyay isbitaalka kala campaign-kii lagu qalana markaan arka mararka qaar kuraasi ku tukanayaan wali salaada anigana waxaan si labadayda lugood hadda waxba isma dhaamaan alxamdulillah dhaawacan wuxuu igu hayay saameyn aad iyo aad u weyn walwal dhafar badan waa igu dilay alxamdulillah haddana Dr. Khalid aa iga qabtiray anoo dhowr jeer ka fikirayo qaliinkan xal maxaa u ah dalka dibadiisa ma u aadi doontaa alxamdulillah haddana inkastoo waalidka ay dhahayeen Soomaaliya isbitaal Soomaaliya isku aamini kara qaliine saas ay tahay waa ku dhiirtay waxa igu sii dhiirigeliyay Dr. Khalid